بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan akhyaarta daawanaysa ayaan aad ugu mahad celinayaa kabacdi waxa weeyaan arintaas aad tiri waa arin su'aal weeyaan laakiin anigu marka aan ka sheegayay fagaaraha ka sheegayay ma ahayn nin fagaara iskaga hadla anigu ma yaano wax cad haynin 20 sano waa dhantahay inta aan aqoonteeda arintan leeyahay laba PhD baan qoray oo dhameeyay labada PhD labaduba waxay ahaayeen midna badda Soomaaliya baan gooni oo xog uga saaray xagga maamulka badaha iyo kheyraadka badaha aan ka qoray marka inay ku jirto maamulka badda iyo korkeeda iyo hoosteeda intaba midna bariga Soomaaliya oo ah bariga dhulka hoostiisa dhexdiisa korkiisa iyo saradiisa intaba in marka la yiraahdo maadada aan bartayna waxay tahay environment marka waxa soo hoos gala maada kale oo la dhaho meteorology-go af carabigan al-irsaad lagu dhaho waxa ay sheegtaa waa kuwa la dhaho weather forecast oo hawada sheega hawadaas marka laga hadlayo ba marka waxa soo galaya roobkiina soo dhaxgalaya roobkaas isaga ah marka halka oo roobkii inuu bari roob imaan doono inuu saadan badii doono inuu laba bilood kadib dii doono xataa waa la sheegaa waxa dhan saas baa marka loo sameeyaa ayada oo marka cilmi ahaan lagu gaaray oo sidaa lagu sameeyo meeshaas baa marka waxa ka jira ku imaanaya qaabka roobka cidda og markuu roobku imaanayo adigiina oo ku soo daayo og hadda waxa aan uma fadhigo ma ka badan in ay ka xadaan ilaa adiga ma ogidba in roobku soo socdo marka sidee baa lagu xadayaa roobka su'aasha isweydiinta leh waxay tahay roobka waa la saadaaliyaa waqtigu daayo waa taa runtii waa jirtaa saadaasha hawada laakiin bal roobka waa la xaday oo roob Soomaaliya wadamo shisheeye xaday wali su'aashaasi jawaabteedu waa taagantahay waxa weeyaan roobka waa la saadaaliyaa laftigeeda ma ahan sidii dhaqanka Soomaalida oo gugi baa dii doono la saadaalinaya oo la filanaya ma ahan waxa ay tahay hab cilmi ah wax lagu daraasadeeyay oo roob inta la eg iyo intaas sidaas daaya la yiraahdo taas weeyaan marka roobka qaabka loo xadayo aan kugu dhaco waxa ay tahay laba saddex siyaabood baa harta roobka loo kala dafaa waa roobka mid in la beerto oo cidaas iskood u beeratay waa beer ayagoo leeyahay ayaga beertaan marka aad ma lahan midna waxa weeyaan dad roob u diilha baa laga dafaa oo laga duufsadaa oo laga dhacaa midna waxa weeyaan waa dadkaas waxa lagu sameeyaa qaab xadid ah ayagoon ogeyn baa laga xadaa midna waa la xoog midna waa xadid midna waa xaalad beerasho saddexdaas nooc bay kala yihiin waxaana jira marka qaab kale oo ku dhex jira oo la dhaho climate modification wax la dhaho oo cimilada in la bedbedelo sidii raba laga dhigo iyo markaas climate geoengineering waxa la dhaho ayadana oo qaab kale loo hindiseeyo hababkaas baa marka jiraan oo lagu dhacdhacaa waana wax cilmi ah oo jira roobka sida loo abuurto waxa weeyaan iskuulka waxa lagu dhigaa koowaad iyo labaad baa lagu dhigaa adduunyada annagu ma naqaan meesha naga martay sidaas ay tahay marka xaaladaasna waa tahay laakiin wali waxaan u maleynayaa roobku hadda saddex qaybood baa sheegtay mid la abuuro mid xoog la isaga qaado iyo mid la iska xado anagu waxaan rabnaa midka xoog la isaga qaado iyo mid kale iska xado waxa weeyaan arintaas marka waxay tahay waa arin iska sahlan oo horta sideedaba roobka marka la beerayo macnaha qaab loo beero laakiin qaybta beerista marka aan soo dhacnaan xadista aan ka hadalnaa deer xadista la kala xadayo waxay tahay roobkii oo hawada jooga ama u soo socda Soomaaliya mesela marka u soo socdo badweynta Hindiya markuu roob soo marayo kale dad ba arkaya waa ka hortagayaan markay ka hortagaan waxay sameynayaan roobkii meeshii uu ku abaarnaa oo Soomaaliya ahayd baa waxa la qaadanayaa diyaarado oo helicopter qaar ah iyo kuwa kale oo yar iyo kuwa kale oo fleet drone aircraft iyo fleet drone baa la qaadanayaa marka la qaato roobkii baa oo sidii ari socdo kala saa u socda ba gadaal laga galayaa markaas waxa lagu sii deynayaa electric wax ah
electrigaas oo sii daynaya waxyaalo oo kulayl iyo qabow isku dhex jira marka hore, marka dambena kulayl ka dhigaya, markaas qayb badinaysa oo electrigaas oo badinaysa hawadii badinaysa. Waxay samaynaysaa meesha ay ka di'i lahayd marka la joogo baa la didinayaa. Diyaaradahaas gadaal laga gelinayaa, waa la didsanayaa daruurta. Sida loo didinayo waxaa la samaynayaa markaas buur humaag ah, buur bug ah la abuurayaa. Buurahaas oo bugta ah oo la sameeyo waxaa lagu xardhayaa cagaar iyo kanaalo beenbeena oo biyo beenbeena ah oo wiliq leh. Markaas markay aragto daruurtu, markay aragto qaabkaas, markay aragto daruurta, markay aragto buurtaas oo buur dihin ah ay aragto, iyo dhul kacsan oo been oo humaaga loo abuurayaa, way soo raacaysaa. Waxay noqonaysaa sida hal igar maqaarka loo xiray oo kaleeto. Halkaasaa baana la soo didinayaa, waana buurtaasna way soo jiidanaysaa, way hagaysaa. Si u wado meeshii la rabaa laga degsanayaa, oo sidaas tartiib looga degsanayaa. Wayna dhacdaayo wax maalin kasta Soomaaliya marka sanad walba almost sanad kasta way ku dhacdaa. Maalan marka waxaa jirtaa dowladaheena dariska ah ka mid ah. Dowladaha adduunku way ilaashadaan horta hawadooda, way ka warqabaan, laakiin annaga kama warqabno hawadeena, annagaaba taanadiina haysataa. Marka waxaa jira maalan hal dowlad baa marka jirta oo xoogaa awooddaas leh, run ahaantiina dowladda saddexaad ee adduunka ugu badisa roob abuuradka iyo roob dhicidda iyo waxaan oo climate modification iyo climate engineering iyo waxaas oo dhan ku taf ah. Dowladdaas marka waxay samaysaa meesheedii ka degsataa. Tiro ka 3-4 jeer waxaa dhacday inuu daadad qaadeen ayagoo weligood aan dhulkooda roob ka di'inin, roob aan laga aqoonin, ama hadduu ka daana maartay adigu ku wareertay ahaa. Markaas waxaa dhacday roobabkii inay daadad ay qaadeen ayaga sanadkii hadeer ahaa, sanadkii 2017 waana marka abaaraha ugu badan annaga ay nagu dhacayeen. Ayagana daad baa qaadayay, ayaguna roob caan kuma ahayn ee buurahooda gubtay, annagana waxaan roob baan caan ku ahayn. meelihii Soomaaliya meelo waxaa jiray hadda 60-70 sano ka hor baraf kabdo la xiran jiray, dad kabday huwan jireen, barafna oo soo dhici jiray, dhaday iska dhihi jireen. Waa dhul baraf oo gaalkacyo agaarkeeda ilaa iyo Hobyo iyo halkaas baraf baa ka dhici jiray. Waxaa dhacday marka dhulkii noocaas ahaa waxaa ka dhacday hadda sanadkii 2017 marka taas nagu dhacaysay. Waxaa magaalada Camaaro la dhaho iyo Baxdo iyo waxaa lagu arkay daruur soo degta, dhul ku soo degtay, haddana hal kala fuqi weyday baa lagu arkay oo xumba noqon weyday xataa. Marka waxaa sababayay marka roobkan la didsanayay oo la dhacayay baa waxa kimikooyin badan baa la isticmaalayay. Kimikooyinkii baa markaas roobkaas ka dhigay mid inta biyihii laga miirtay qolofkii halkaa lagu soo tuuray ama asagu soo dhacay. Kadibna dadkii waa cudurro badan iyo xoolihii dadkii oo ku dhaceen. Qaabkaas oo dhan baa jira horta oo saas loo dhacaa. Dowladdaasi maalan annaga keliya ma ahan, waxay ka soo dhacdaa wadamo kaleeto oo la og yahay. Waxaa jira waddan kale oo ku dhow oo Asia ka mid ah, badda hoostiisa ayay kanaal ka samaysteen oo webi ku soo daadfura kuwaas. Pakistan webi ku soo daadfura inay hoosta inta ka galeen ay biyihii soo urursadaan oo waddankooda ka degsadaan, beerana ku fashaan. Taa markaa dacwo ahaan ka sokow horta waa qaab ammaan ah oo waddan maantay annagii derisnala ah, dhaqannala ah, dadnala ah inay heerkaas gaaraan horta waaba sharafba. Annaga laakiin ceeb bay noo tahay inaan xataa inay jirto garan weyno. Marka qaabka wax la iska dhacayana Soomaaliya waa saas sheegtay, khayraadka badda waa la dhacaa, waa caadi, khayraadka bariga waa la dhacaa, khayraadka hawadana waa la dhacaa, roobka waa la dhacaa, dadka maskaxdoodana waa la dhacaa, diintana waa nala ka dhacay, inta waa nala ka dhacay. Waa runta caadiga ah. waa tahay Dr. Qaasim, marka hadda abaarahan sanad walba soo noqnoqdo waxaad leedahay roobkii Soomaaliya sidii xoolihii baa loo didiyay. saas ay dhacda
oo macnaha aan hadda keliya ahayn markii ugu horeysay ee wadankaas aan sheegayo horta ay bilaabeen arrimahaas waxay ahayd 2014 bay bilaabeen 2016 annaga waa nagu bilaabatay ilaa horumar baa lasii gaaray kabadibna hadda waaba nakaasaaba waa naxaaratay sidaasaan ku jirnaa qaababkaas marka kimikooyinka waxaa ka daran roobka la dhaco waxaa ka daran kimikooyinka nagu soo daata oo ilaan korkaygaa shaqo lagu qabsanayaa sababtana maxay tahay marka kor annaga naloo beegsanayo waa mida wadamada kale wadanka dhulkooda iyo hawadooda atmosferka waxa ku jira iyo stratosferka waxa ku jira oo dhan way u jeedaan laakiin annaga uma jeedno mana garan karno marka maxay samaynayaan ayaga hawadooda atmosferkeeda meesha ku dhamaado iyo meesha daruuruhu ku samaysmalaayeen iyo waa dhul lama degaan ah sida uu dhulku lama degaan u yahay iyo carro cirkooduna lama degaan u yahay beer aysan ka bixi karin oo dhul aan la abuuran karin yahay oo qoyanayn waayo waxaa la rabaa meeshii dhulka inay jirto macnaha dabayl xayayaabo qabow ah inay jirto oo wax abuuri kartaa oo markaas marka iskuna aruuri karto badan kartaa taasi dhulkooda kama dhici karto waa ka adag tahay inay ku dhacdo waxaa jirta marka inay dhulku meesha ugu dhow ay ka soo aruursadaan oo ay meeshooda keensadaan taas baa nagu dhacda kimikooyinka marka ay isticmaalaan oo ay maaragtay caanka ah baa waxaa ka mid ah oo baalahan abuura waxa la yiraahdo marka ugu horeysaba horta marka la samaynayo hawada la qaabqaabaynayo waxaa la isticmaalaa waxa la dhaho carbon oxide iyo waxa la yiraahdo silver iodide labadaasaa la sameeyaa labadaas marka silver iodidekaas lagu sameeyo cafwan waxaa abuurmayaa waxa la dhaho cumulus cloud waxaas hawada noocaas oo marka ay hawo waxaa la abuurayaa yara adag dabayl isxajisata isu tintimaadaa la abuurayaa taas markii la abuuro baa marka waxaa la isticmaalaa sida didsiga iyo badsiga loo sameeyo labadaba ayaa waxaa la sameeyaa qaabab oo kimikooyin lagu darayo kimikooyinkaas lagu darayo marka waxaa ka mid ah oo iska caadi ah waxaa la dhaho potassium baa ka mid ah chloride baa ka mid ah sodium fluoride baa ka mid ah waxaa ka mid ah magnesium waxaa ka mid ah phosphorus fluoride iyo fluoride iyo kale noocyo kale oo badan baa ku jira oo saa ku abuurmaya oo halkaa lagu samaynayaa marka lagu sameeyo meeshaas shaqo badan baa ka dhacday shaqadii badneed oo ka dhacday wixii soo daata waxay noqonayaan sun kimika ah waxayna ku soo dhacaan annagay nagu soo dhacaan roob warkiis daa waa lagaa dhacay laakiin haddana sun baa beddelkeedii ku imaanaysaa halkaas bay tahay qaabkaasna oo waxaa loo samaynayo waxay tahay daruuraha baa waxaa jirta marka oo macnihii maalan daruurta la abuurayo meesha ugu weyn waxaan laga bartayna horta waa qur-aanka waxaa laga yaabaa qof inuu ku fikirayo oo ilaahay baa yir waa cilmi qayb waa saa ilaahay keliya roobka saan ku tahay ilaahay baa roobka keena laakiin waxaa loo marayaa maxay tahay dariiqadii asbaabta keenaysay asbaabtii baa la samaynayaa marka roobka xataa waxaa keliya laga baran karaa intaadan iskuul xataa aadinin aayado badanoo qur-aan sheegaya waxaa ka mid ah ilaahay qur-aankiisa markuu ku yiri siduu ku halaagay qowm caadiya markuu noo sheegayay waxa uu yiri riixin sarsarin caatiyatin sakharaha calayhim 7 layaalin wa 8 ayaamin marka maxay tahay waa riixin waa waxweeyaan dabayl sarsarin oo qaylinaysa cod abuuraysa caatiyatin oo haddana adag oo isku soo dhegaysa markaas taasaa waxaa weeyaan ay ku jireen 7 cisho keliya intay markaas daruurahaas ay qabsadeen dadkaas waa dhammaadeen waxaa weeyaan meesha iyagoo qolfaha la arkay maxaa keenaya markaas waa kimika daruuraha dhexdooda ka abuurmaysa halkaas marka sarsarin la leeyahay waa marka ay abuurayso onkodka oo kaleeto marka inta iscurjiyaan laba dabaylood ama laba dabaylood oo aan isaqoonin oo markaa is arkeen isku dhacaan oo jig isisiyaan baa marka shilkaas halkaas ka dhacay waxa uu abuurayaa in ay maxay tahay ay cod abuuraan codkaas isliska ah oo abuurmay baa marka sarsarinkaas ah
caatiyatinta haddana marka macnihi waa iyadii adkaatay oo heerka waxay gaartay condensationka la dhaho ayay markaas gaartay. waxaa u dhiman heerka la dhaho precipitationka oo soo di'iddu markay boosdalkeedi meesheedii la joogo baa marka raggaani kaxaysanayaan, waayo aqoonteedii bay intaa leeyihiin oo iyo qalabkeedii intaasoo dhan saasay marka ay u dhacaysaa. waana marka waxaas qur-aankana si saxa u waafaqsan, xataa heerarkan ay soo marmarayso oo dhan ayaan aayad qur-aana oo sheegaysa suuraddan baaba racdiga ka hadashaba. ma jiraan dad aqoon-yahano ah oo arrintan aad kala hadashay oo runtii kula challenge gareeyey? walahi horta maaragtay dad badan way og yihiin, dad badan oo aqoon-yahanaha maaragtay way dareemayaan, markay maqlaanna way garowsanayaan. marka laakiin dad hadda anigi ayaga aan ka munaaqashoonay oo ka hadalnay weli ma jiraan, sababtoo ah qof walba tiisa haysata. soomaaliyana macnaha cilad weyn bay leedahay oo ah qofku aqoon ma leeyahay. waxa weeyaan kan aqoonta la dil, sida cabdulqaadir xirsi yamyam uu ku gabyay oo kaleeto, kan aqoonta la dil, kan waxbaray dil, wax uu baray dil, ilaa aqoonta dil ay gaarto eryasaasa. marka halkaasaan joognaayo annaga hadda aqoonba nolooma ogola. marka taas dhibkaasaa jiro horta kow. tan kaleeto macnihii xataa haddii wixii laga wada hadlo oo wadaado iyo kuwa diin yaqaana iyo kuwa maadi yaqaana intay isu yimaadaan ka hadlaan, waxbaa la isu kenkeeni lahaa. oo tusaale hadda aayaddaas aan ku sheegay oo kaleeto baa wax weyn laga fahmi karaa. waxaa kaloo aayad suuratu racdi oo dhan laga fahmaya aayadaheeda badankeeda hadii la aqriyo. waxay kaloo aada u muhiima heerarkaas hadda aan soo sheegay oo kaleeto, heerarka iyaga ah aayadda si fiican u wada sheegaysa ee qur-aanka ee suuratu racdi ku jirta waxay tahay acuudu billaahi min ashaydaani arajiim bismi illaahi araxmaani araxiim huwa aladii yuriikum albarqa khawfan wadamacan wayunshi'u asaxaaba athiqaala ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب به من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. إلهي marka intaas aayadaas waxa uu ku sheegayaa waxaa jira ilaahay waa kan idin abuuray maaragtay wuxuu idin tusinayaa barqiga oo macnaha roobka hilaac ay idin tusinayaa hilaac weeyaan. markaas wuxuu idin hilaacaas cabsi iyo rajo labadaba waad ka qabtaan. dhanna waxaad leedahay armu birqdu nagu dhacdaa, dhanna waxaad leedahay armu daadna qaadaa, dhanna haddana waxaad leedahay arman waa ku barwaaqoobaynaa. ilaahay wuxuu leeyahay wayunshi'u saxaaba thiqaala, wuxuu oo abuuraa horta wax uu asaasaa oo asaaskeeda kiciyaa maxaa la dhahaa daruurta ayuu asaaskeeda kicinayaa. thiqaala marka haddana way adkaanaysaa markay adkaato oo ayadii sidaas u adkaato. wayusabixu racdu bixamdi, markaasuu onkodkuna uu markaas ilaahay u tasbiixsanayaa iyo malaa'igtu ay ilaahay u tasbiixsanayaan. oo maxay tahay? waa fool bay ahayd, way dhalaysaa. markaas waxay samaynaysaa inay foolato oo dhasho, sidaasay ku dhalaysaa. markaasuu ilaahay cidduu doono u di'iyaa. marka ilaahay cidduu doono uu u di'iyaa, laakiin ciddii uu markaa ku kor di'i lahaa hadday caqli yeelan weydo, akhlaaq xumana ku darsato, fitnooyinna ku darsato, hadda cidda u dhow baa marka qaadanaysaa. taasna waa wax marka meesha ku jira. roobkan marka waxaa jirta marka koowaadba horta hawadu 3 qaybood baa marka hore la fasiraa cilmiga meteorology-ga. 3daas qaybood waa 3dii aan sheegay hadeer oo macnaha aayaddaas ay sheegayso. 3da iyada ah cilmi saynisku uu si kala dhiraandhiriyey 8 buu ka dhigay, 8 hawo oo roob abuurta. oo haddana markaas roobkuna uu maro 8 marxaladood. 8daas marxaladood oo roobka marka uu marayo ama daruuruhuna ay maraan ayagoona kulli ay maraan baa waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo marka koowaad roobka macnaha qaabkaas daruurahaas waxaa ka mid ah evaporation ka soo bilow. markaad evaporationka ka bilowdo waxa aad ku tegaysaa evaporation baa aragtay, kabacdi waxaa samaynaysaa condensation baa imaanaya,
condensationka marka uu yimaado waxaa imaanaya precipitationkaas waa saddexda ugu muhiimsan. kadib baa waxaa sii imaanaya haddana infiltration, haddana waxaa imaanaya percolation mid la yiraahdo, haddana run off midka la yiraahdo, haddana waxaa imaanaya evapotranspiration midka la yiraahdo, haddana waxaa imaanaya storage midka ah. intaas waxaa lagu sameeyaa waa marka hawadan la gedgedinayana waa la isticmaalaa oo hydraulic cycle-ka la sameynayo. intaasoo dhan baa lagu sameynayaa. marka isku soo duuduuba hawadii waxay maraysaa markaas saddexdaas darajo oo marka qur-aankana uu ilaahay noogu sheegay, oo marka hore ay tahay hawo sida cunug marka aan abuurmin oo kaleeta ah oon waxba taraynin ay tahay, marka kalena ay tahay qaabkaas uu xoogaa uu kobcayo oo uu isku aruurayo oo uu noqonayo xinjir noqonayo, kadibna uu qof strong xooga noqonayo. sidaas baa marka loo sameeyaa. qaababkaas loo sameynayo yaa marka waxaa soo gelaya dee qaabkii dhicidii iyo xadidii iyo waxaasoo dhan. dowladahana way isku dacweeyaan. dacwooyin badan baa hadda ka hor dhacay oo waxaa ka mid ah dacwooyinkaas caanka oo dhacay marka horeto wadanka la yiraahdo maalan 2000 iyo waxay bilowdeen dacwooyinka noocan oo kaleeta ah markay sanadku ahayd 1960 bay bilowdeen. lixdameeyadii waxay ku bilaabatay in ruushka iyo maraykanku ay isku dacweeyeen. haddana ruushka iyo kuwiisa ka jajabay ay dacwooyin saas ka dhaceen. haddana waxaa jirtay marka mid ka dambeysay oo kuwiyowga hadda dambeeyay aan qabsano 2000 iyo wixii ka dambeeyay 2018 dacwad culus baa ka dhexdhacday Iiraan iyo Israa'iil oo ah roob inay ka dhaceen ku di'i lahaa xaafadihii ku di'i lahaa ay yaqaanaan maartay buurihii uu ka degi lahaa iyo waxaasoo dhan. haddadaan la joogo waxaa socota dacwad socota oo ah maartay India iyo China, oo China webiga Buuta la dhaho oo ay ku samayso India ay ku soo deyso Bangladesh marka ay roobku da'o. markuu roobku abaarta ay tahayna ay ka xirtaan webigaas baa laftirkiisa biyihii kor uga soo imaan lahaa baa waxaa dhaca China. hadda waa webigii ma la dhacayo, biyihii kor uga imaan lahaa baa la dhacayaa oo majaroor loo dhiganaya, la duufsanaya. sidaas dacwadaas hadda way socotaa Shiinaha iyo India ka dhex socotaa. waxaa kaloo ay socotaa haddana مثلا qaababka ciidamada la soo isticmaalaa ruushka oo isticmaalay, maraykanku oo isticmaalay markii Vietnam la dagaalamayay, wuxuu u diiyay maalintii jidkii ay soo goyn waayeen oo meelihii soo mari waayeen roob weyn bay inta u diiyeen abuureen oo u diiyeen bay dadkii masaakiinta ay Vietnamka markay kici waayeen roobkii la kici waayeen bay soo galeen oo sidaas jidadka ku falfasheen kuna qabsadeen caradii. wax iska caadiya weeye marka wax hadda muranba ah ma ahan. waa tahay runtii aad baad mahadsan tahay. marka hadda Dr. Qaasim waxaa leedahay Soomaaliyey roobkiina ilaashada ayaan ladinka xadina. anigu waxaan leeyahay Soomaaliyey sharafkeena koo ilaashada, caqligeena ilaashada, diinteena ilaashada, roobkeena ilaashada, khayraadkeena hadee dhameysay laakiin waxa dhiman iyo wax hadda kadib imaan doona isku daya inaad wax ka ilaashataan, laakiin adinku ha noqonina gacantii loo isticmaali lahaa intaasoo dhan in la qaato oo sidaas lagu baabi'iyo. marka waxaan aad uga helay gabay yar oo meel aan ku qartay oo uu tariyay, ninka tariyay ma aqaan hadda actually, laakiin waxa weeyaan gabaygu wuxuu yahay maxaan dogob bear is ere daruuro u soo sabsab is ere daryaalku waxa weeyaan daryaalka kumaal is ere biyuhuse uga sii dareen. maxaa degdeg jeer ku liqay, maxaan degdeg jeer ku laqay, maxaa degdeg midaan jeer ku laqay, maxay dib iigu soo dareertay oo dib iyo damqisay. marka calaa kulli xaal waxaa weeyaan macnaha ninkaas inuu fahmay inuu daruur sabsabkeed ay jirto. daruurtii waa la sabsabaa oo sida hashi maqaarka loogu marayo loogu maalayo oo kala daruurtiina maanta buuro bug ah lagu maalayaa. sidaasaa marka Soomaaliyey naloo bililqaystay. hadda iyo danna waxay tahay meeshaas maadaama aan marayno rajo yaanaan dhigin, weli dad baan nahay, waan noolaan karnaa, waana ceshan karnaa oo xifdisan karnaa hantiyaheenna, midda dhulka hoostiis ku jirta, midda dhulka dhexdiis ku jirta, midda dhulka korkeed ku jirta, midda hawada ku jirta, baddana sidoo kale intoo kale ku jirta. aad u mahadsan tahay Dr. Qaasim Xirsi Faarax.